السلام عليكم كسو دواad casharkeena maanta halkan maanta waxaan ku diyaarin doonaa project-gii casharkii 10aad oo ah project aan ka sameyn doono Camtasia Studio asoo dhameystiran meesha laga soo bilaabo ku shubitaan ilaa project-gu la dhameystiro video la sameeyo kadibna la save gareeyo project sameysan ayaan doonayaa inaan sameeyno okay hadaba si fudud baan rabnaa inaan u dadaal inaan ku bixino ila soco waxaan galeynaa computerka dhexdiisa ayaan galayaa kadibna waxaan soo furanayaa halka downloadka waxyaalaha soo degsada ay yaalaan waatan Camtasia halkan igu jira Camtasia igu guji kadibna wuxuu leeyahay Camtasia meerta inaan furtid waa soo furtay waxaan ku arkay tani waa setup-kii Camtasia setup-ka ayaa double click siinaya kadibna wuxuu ku leeyahay password gasho ku leeyahay si ugu shubatid oo password ayuu iga rabaa marka adiga password ku weydiin waayo laakiin aniga caadi igu shaqeynaya laakiin datadan password iga rabto ma oo isticmaalayo double click baan siinayaa kadibna waxay noqonaysaa in toos igu socoto hadaba mid kale aan fiirino double click baan siinay double click baan siinay kadibna waxaan niro double click way igu shubmaysaa tan iga cancel okay Camtasia igu shubmaysa waxa inuu yiraahdo ku shubo ayaa ii hadha kaliya waan sugaynaa ilaa inta ay muusku wareegsanayo oo u jeedaan in data installation ay soo qabanayso markaasna waxay noqonaysaa ku leeyahay ku shubanaysaa Camtasia setup block setup waa la xirayaa uu leeyahay mid kale ta ayaa ku shidana ma la xirayaa please close Camtasia uu leeyahay Camtasia marka sidaan ay ugu shubanayaa haduusa mid kale ii furnay nagasti baan ka raacayaa marka kan aan leeyahay iga cancelayo dhanba okay Camtasia hore igu jiday tii hore ayaan adeegsanayaa laakiin ujeedada waxa ahayd in adigu kugu tuso deetana asaas u madhid okay marka ii soo kici Camtasia igu shubantay sidaan ay igu noqotay marka igu shubantay marka koobaad waxaan sameynayaa inaan waxaan isticmaalayaa qaybahan kala duwan baa la isticmaalaa markasta qaybahan kala duwan ayaa markasta la isticmaalaa qaybta media waxa la yiraahdaa media waa qaybta video-yada qaybtaana waa annotation oo meesha text laga soo galsho halkaana waa transition oo meelaha markii laba muuqaal isdhaafayaan lagu qurxiyo behavior waxa weeye muuqaalada aad sameysay ama farta aad sameysay meesha lagu qurxiyo dhaqdhaqaaq lagu yeelo animation sidoo kale to wax socodsoconayo ordahayna ka sameysid iyo effect kale to oo effect saameyn ku leh muus la yiraahdo muuqaalkaaga oo aad ku qurxinaysid marka waxaan sameynayaa import isoo gali waan leeyahay import baan ku dhufday hada import iri intaan import ku oran halkan maxaa yaala import baa ku qoran intaan qayb soo gashan kadhaa waa effect waa video waa cod waa sawir inta wad soo gashan kadhaa ku leeyahay marka waa ku dhufday kadibna waxaan tagay computerkayga dhexdiisa ay toos ii geeyay meel alla meesha rabay wax ka soo qaadanayaa sawir baan soo qaatay ma soo gasho kan waa sawir caadi okay sawirkan soo qaatay kadibna sawirka soo jiitay meeshaan soo dhigtay hoos dawliba igu soo deji okay so track hadda asaas ka badan doone saa u kala bixi deetana maxay ku noqotay shaashada inay fit uga dhigaan rabaa shaashada marka fit uga dhigay geesaha qabanaysa asan u kala jiiday oo shaashada laftigeeda yar soo ma jeedid shaashada laftigeeda si aan u habeeyo waxaan ku dhufanayaa halka yar oo fict ay ku qorantaan ku dhufanayaa kadibna waxaan ku sii dhufanayaa project system ma ku dhufdo wuxuu ii soo keenayaa halkaan uu keenayaa masana waxaan sii furayaa fictaas yar ayaan sii furayaa kadibna waxaan ka dooranayaa size-ka aan u baahanahay anoo scroll bar-kan yar kor u kaxaynaya kadibna waxaan ka dooranayaa high definition HD oo high definition ah 9 ku waxa weeye 1920 lagu dhufday 1080 ayaan ku dhufanayaa click siinaya kadibna apply waan leeyahay
maxay noqotay shaashadii way weynaatay marka shaashadii aad bay u weynaatay oo wata sawirka ay yiraahdo hadda sawirka saan lagu kala bixinayo marka shaashad weyn oo wax toos loo arki karo ay noqotay okay kani waa sawirka ugu horeeyay kadib wadaan doonahay inaan soo gashado video kale ama sawir kale maxaa sameeynayaa waxaan isticmaalayaa computerkayga waxaan isticmaalayaa control-kiisa iyo ayda xarafka ay ama i waan isla qabanayaa kadibna wuxuu i dhexgeeyay meeshii ugu dambeysay wax ka soo qaatay ayuu i geeyay waxaan soo qaatay sawir kale ayaan soo qaatay oo waa soo okay open ba soo iri waa la i dhex keenay misna control ay baan iri dib baan ugu noqday waxaan soo qaatay waxaan doonayaa inaan soo qaato muuqaal kale video kale ama muuqaal caadi aan soo qaatay kadibna okay waa ku soo iri toos buu igu soo galay muuqaalka sidaan u muuqanaya sawirku calaamada yar buu leeyahay oo sawirka lagu yaqaano kana wuxuu leeyahay muuqaalkii oo sidaan muuqaalka ayaan soo qaatay kadibna waxaan rabaa inaan hoos ka marsho hoos ayaan doonayaa inaan ka marsho kana kor u soo kicinaya kaasina hoos baan ka marinaya ama se hoos ka marin maayo meeshiisa u daynayaa oo asaan si yareynaya kana kor baan ka soo dhigayaa sidaan rabaa isticmaali karaa marka waa sinay labada muuqaalkii wax yar buu noqday muuqaalkii soo ma arkaysid hadaba saan la ekeeyo waxaan sameyn karaa muuqaalka saamku igu dooriyay halka scrollka halkaas iskaalka aan ka weyneyn karaa halka markaan soo arkaysid halkaas aan qabanaya halkaas aan ka weyneynaya ama geesahana qaban kara saan u kala jijiyo intaan kala jijiida aan waanto sameyn control z waxaan qaban karaa iskaalka saas aan u kala bixinayo shaashada markuu fit ku noqdo ayaan u deysanayaa oo muuqaalkaasi waxa weeyaan muuqaal toos ah oo qurux noqday hadaba inta hore waa iska jaraya xayeysiinta markaan doonayo wax jarab see yeelayaa muuqaalkan horta dooranaya markaan doorto ayaan waxaan ku dhufanayaa halkaas ama esta computerka ayaan riixaya labada waa mari karaa kan ka hor dooro iska tuur macnaha waxa iska tuur aan ku leeyahay ma soo celsho saan markuu igu yaalo laba qaab baan sameyn karaa inaan araahdo right click kadibna delete iyo inaan computerkayga delete-kiisa riixo labadaas waa sameyn karaa marka saan isku soo kay kordhig muuqaalka iyo dul saar sawirka ka hooseeya sawirka kala bixi marka soo muuqaalka igu qurxoonaado meeshan waxaan rabaa inaan ka tirtiro oo daruurtii cirka ka muuqdaan kadibna markaan doonayo daruurkii cirki inaan helo sawirkan hoose cirki ah kanina waa muuqaalkii oo videogan green screen ka dambeeyo oo meeshan cagaarka hadduu si green screen ka dambeyn uma bedeli doontid sawirka qaybtiisa dambe iska ilaali okay markaan doonayo inaan bedelo background-kan maxaan sameynayaa waxaan ku dhufanayaa mo oo ah tan ugu hooseysa qaybahan mo wax ka si dheeraada soo ma garanaysid marka waxaan ka dooranayaa qalinka oo ah virtual effect markaan ku dhufuday waxa ay soo baxday qayb aad u fara badan oo qaybahan remove color baan ka qaatay waa jiidayaa ninkan sawirkiisa waxaan dul dhigayaa muuqaalka awal ii doorna dhig markaan dul dhigay dhankaas ayaan aadayaa halka ayaan gujinayaa kadibna mouse waxa qaadanayaa qalinka kaas ka muuqda qalinka qaadanayaa meesha cagaaran ma ku dhufanaya wuxuu sameeyaa cagaarkii ugu soo cesho ku noqo meesha laftigeedii oo qalinka marka la isoo qaad ku dhufo okay cirkii caadi soo ma jeedid okay waad maleynaya inaad si fiican ugu jeedo marka magaalo ka sokayso cirkii inaad u jeedid oo caadi codka halahay ka waran muusiga dhexshay muusiga see u galaya muusikada qaarka u gaabinayo waa lagu sheegay saan soo kugu dooran halka ayaa gujin ka dhaa sida cashirka hadda aan soo dhaafnay ku qaadanay gaaka gujiye maxaa arkaysaa ina xariiq yar dhexda looga sameeyay green haddaan kor u dheereeyo muuqaalka cirka ku darmayo codkii uu dheeraaday haddaan hoos u gaabshana codkii uu tagay okay saasaan u aragnay codkii uu dhamaaday magaaladan marka saan weeyaan
waxaan ka dhigaynaa meel roob ka da'ayo, magaalo roob ku da'ayo ayaan ka dhigaynaa. intaan kalarkii intaan bedelno waxaan sameynaynaa waa inaan soo helnaa muuqaal roob taata computerka dhex galo ayaan wax ka raadinaya wax video ah oo roob da'aya laga matali karo. okay haddaba meeshaan waxa rain drop dhibco roob aan helnay waana soo qaadnay. okay waa soo qaadnay kadibna waxaan sameynaynaa rainkeenaas aan soo jiidanaynaa muuqaalka dushiisa muuqaalada kale ayaan kor saaraynaa. waan kor saarno sidaana xagga ugu raacaynaa meel roob oo qurahan rabnaa inaan helno. okay wax kale aysan ku darmanen computerka ayaa aad u culus oo ku dhegdhegaya daruurtaan ma rabno meeshaan oo wax kale la saaray. okay sidaan markuu yahay ayaa waxaan leenahay isbelti ma riixaynaa kadibna maxaa dhacday kan hore iga jar ninkan hore ka jaro saan igu durka asaga. okay codka shaaxda kor u dheereeday dhibcihii oo gurxankooda maqlaysid kadibna qaybtan ugu dambeysa waa muusika kaga dambeysa iga jar hadda iska muuqda muusika dambe iga goo kadibna roobkii dhibcihiisii waan rabaa oo magaalada ku da'aya maalan inaan ka dhigo halkaan markaan imid waxaan sameynayaa kan ayaa ku dhufsanaya. markaan kan ku dhufdo waxaan sameynayaa maxaa u jeedaa waxba scroll bar meelaan ka kala baxshaday ma muuqato property aan ku dhufanaya. property markaan ku dhufdo maxaa isoo baxaya waa la iga qashay waxba kale layma tusaayo. sababta maxay tahay waxaan joogaa cod baan joogaa waa inaan ku dhufdaa video markaan ku dhufdo maxaa sameynayaa scrollkaan kala weyneynaya. scroll markaan weyneeyo shaashadii hore igu sinantay kadibna waxaa i tiraahdaa virtual effect sawirka qofka soo jiid dulkeen kadibna waxaa tiraahdaa halka guji qalinkii qaado ku dhex dhufo roobka dhexdiisa. waxaan u jeedaa magaalo caadi ah laakiin roobka inaan loo jeedi waayo hadda da'itaankiisii aan ogaan. okay si fiican oo nooguma muuqdo haddii aan magaaladan aan ka bedelno siday tahay oo u bedelno inay tahay mid si muuqaalkeedu ka duwan yahay kan oo circir caadi ah u samaysan. laakiin hadda waxaa naga qaranaya ama halkan dhul ay tahay magaalo aysan ahayn markaad roob caadi ah arki lahayn balse hadda kaad uma jeedayno markii meel cilaa uu noo joogo waan arki lahayn meel cilaa kan iga duub kan iga yaree kadibna waxaan sameynayaa hoos baan soo aadayaa. okay tanaan waxaa kala bixinayaa waxaan leeyahay okay dhulba ma yeele maxaa roob ku da'a cirka miyaa roob ku da'a. okay kaa shaqadiisu waa sidaa ayay naga noqotay oo si toos ah waan arki weynay. marka waan haddii aad waad keeni doontaa haddii aad doonaysid inaad dhul saana kala samaysid wax yar baa hadda ka muuqda laakiin wixii si toos looma dareemi karo computerka ku dhegdhegaya. okay waa artificial rain. okay waxaan doonayaa marka inaan shaashad kale muuqaal yar halkaan ka sameeyo. muuqaalkaas yarka wuxuu noqonayaa calaamad oo kale ama qof sharaxaad bixinaya aljazeera oo kale soo daawata telefishinka aljazeera waxaa arkaysaa qof dhagala oo sharaxaya qofkii tooska warka u tabinaya halkaan in taagan yahay oo meel yar sawir ka samaysan halkaan kale buu yaalaa. marka saas kale soo sameynaa rabnaa sidaan u sameynaa. haddaba maxaan sameynaynaa waa inaan muuqaal soo qaadanaa. muuqaal markaan soo qaadano hagee u raadsanaynaa kasoo qaad qofkaan ordahayo kalaan rabnaa asagoo ordaya waxaan kasoo qaadaynaa qofkii dhagaha la'aa ee casharka aljazeera sharaxayo oo kaleeto. deetana waxaan sameynaynaa inaan running man soo qaadano ninkaan ordaya inaan soo qaadano ninka ordaya markaan soo qaadano waxaan sameynaynaa asaga taran waa sii yareyn karnaa
dhexdan ta qabana xagga geenayna qofkii warka fasirayay ee dhagaha la Aljazeera ayaan ka soo qaadaynaa kadibna waxaan sameynaynaa virtual effect aan leenahay waxaan soo qaadanaynaa remove effect remove color waa ku dhex dhufanay ma ku soo dhex jiidnay marka ku dhex sii deynay ayaan wax ku dhufanay halka kadibna qalinka soo qaadanay qalinka meesha yar ee buluuga aan ku dhufanaynaa qofka ka shaqeysa buluuga si fiican ugu sii muuqday masana ku noqon waxba kaama qaldanee ku dhufo masana okay maxaa arkaysaa inuu sii daayay running man qofkii wuu ordaya soo ma jeedo computerka ku dhagaya soo yar buu wakaas u ordaya culayska computerka xaggiisa la xiriira weeyaan kalarka hadda isku bedelayo soo ma jeedo soo aan shidnay wuu ordaya soo ma jeedo muuqaal ka sokay sidaas loo sameeyaa daartu sidaan markuu uu joogo ayaa ka dhiganaa tu soo weeraan inuu halkan yimaado dadweynaha halkan yimaado maxaa sameynaynaa kaan asalisa noo dooran waxaan tagaynaa kana meeshii qoraalka lagu sameeyay waxaan tagaynaa animation-ka ayaan tagaynaa animation-ka tagno waxaan tagaynaa animation qaybaha ana ku jira tan oo kale ta custom noo soo qaad custom mid kasta waa adeegsan karaa laakiin custom-ka noo soo qaad maxaa noqotay xariiq yar xariiqda xagga noogu soo jiid xariiqda marka laga soo jiido maxaa leenahay madaxeedaas imaanaynaa waxaan leenahay marka madaxeeda la joogo iskaalkaas aan qabanaynaa weynee ninka noo soo weynee dadna markuu weynaado xagga nooga soo dhig markuu weynaado ka noogu soo dhig markuu weynaado saasaan niri okay maxaa u jeedaa hadda wuu yaryahay soo maaha okay aan baraaweyna marka bismillah computerka culus waa dhow yahay inuu kor usoo weynaado doonaynaa marka computerka ku dhagayo kor uu soo istaagay soo ma jeedin intuu soo socdo dhan ma aan arkaynin oo halka intaas markuu isbedelku wuxuu ka dhacay inta hadda asagoo meeshan ordaya aragtay halka soo ordayna way kugu dambeysay samaad garan halkaas saada muuska u saaro waxa u jeedaa hoos buu taagan yahay ila u soo qaad waxa u jeedaa wax yar kor soo koray dhaxaha hawada muuska soo dhaway maxaa arkaysaa uu ka soo yara koray dan saan araa kor buu soo socdaa soo meel uu taagan baa arkaysaa okay qaybta dambe dhan kor buu soo weynaaday intaan ayaa wax ka dhacay animation ku ka dhacay meesha inta ayaa animation ka dhacay muuqaalkii fogaa wala soo dhaweeyay okay ama soo dhow abaad fogeyn ka dhacay intaaba waa sameyn karaysaa okay muuqaalka marka waxa noo haray muuqaalka waa qurxinay waa sameynay waxa noo haray kaliya inaan sameyno qoraalka inaan sameyno baalka sameynayno annotation baa tagaynaa annotation noocyadan iyo midkood qaadanayna laakiin noocan wuxuu ku haboon yahay hadal oo la sheegayo fiktaas yar waxay tagtaa qofka afkiisa tan waa ABC ku qoranta waa meeshii qofka kelmaduhu sheegaya laakiin tan oo rectangle-ka ah waan qaadan karnaa rectangle marka qaadano haddii rabto qoraal waxba iska sheeyno waxa qaadan karaa kan oo kaleeto ayaan qaadanay marka qaadanay waxaan sameynaynaa saan u qaadano meeshaan u banaynaynaa kadibna waxaan noo soo jiid halkaan oo dhig sida sawir caadi oo kaleeto deetana waxaan leenahay noo kala bixi kisto yar noo kala bixi oo meelaha noo dhig waxaan leenahay halkaan aan soo dhignay kadibna qoraalka waa kana double click si laba jeer oo degdeg gacanta ku dhufo markaas maxaa dhacday qoraalkii highlight baa saarmay waxaan leenahay marka running man nin ordaya oo kala niri waxa laga yaabaa
dhinac isbeelinka xarfaha qaarkood ay meesha ka duwan yihiin laakiin oo double inta noqon karo sababtoo ah hal shaqal ba ka horeeyay. Okay, marka taa anagu luqad ma baranayna hadda balse waxaan sameynaynaa inaan qoraal qurxin ayaan doonaynaa. waxaan nooga dhigtaa blue nooga dhig qoraalkaas uu yahay kadibna halkaana ka weyneyn karnaa iskaalka kala jiidi karnaa. may waxaan sameynaynaa video qaybtaan aan tagi karnaa iskaalkaana ka weyneynayna. marka dan yareena waxa dhacaysa dan doonayna gacanta caadi ula tagna halkaan qabanayna saas u kala bixinayna. markuu saan dhacdo halkaan qaban karnaa hoos baan keeni karnaa. waaw waana kala wareegay lama rabo toos dhexdaana qabanayna gees baan qabanay saan u soo jiidaynaa. okay marka saan u sameynay waxaan leenahay toosi level toosaan rabnaa. meesha wax laga kala wareejiyaa waa dhibicdaas yarta ayaa wax laga kala wareejiyaa dhexdeeda ku jiro laba dhinac mid dhibicda soo xigta. marka wax kala wareejinaysa muuska sida afargees weey laakiin halkaan wuxuu noqonayaa dhig buu ekanay iPhone oo kale. markaas muuska cadaadinaysa waad wareejinaysaa markaas wuxuu noqonayaa inuu wareego. soo ma jeedid running man ha dhacday running man dhinac kasta u wareega taas uu noqonayaa. okay saan noogu daa kadibna halkaan qabo isla meesha laftigeeda qabo hoos soo jiid waxa qortay running man halka ayaan ku qornay meel ku dhufana maxaa dhacaysa ku qortay running man. okay halka markii joogto waxaan rabnaa inaan socodsiino ayada laftigeeda noo door kadibna waxa tiraahdaa animation-ka noo qaad. animation kan tagno waxaan sameynaynaa animation ma ahana behavior baan tagnay waxaan soo qaadanaynaa qoraalka aan nacajib gasha ayaan ka dooranaynaa qoraaladan kana kala muuska noo saar korba ka soo daadanaya sama asaga noo soo qaad noo dhexkeen wuxuu noqday running man dhinac kale u soo jeestay kala wareeji dhinac kale u jeestay waa naga rogmay qoraalka markii effect-ga ku dhacay buu saameyn yeeshay. okay halka markuu joogo waxaan sameynayaa halkaan ayaa ka bedelayaa waxaan leeyahay wuxuu noqonayaa qoraalka reverse noqonayaa text oo ah muxuu noqonayaa noocyada midkood ayaan dooranayaa oo center out ma bidixii midib ka dhig kadibna waxa tiraa kan waxa noqonaya erase in ka dhigtirmeeshada ku tirtirmaayo macna ka. okay ka circle ka soo qaadanay kadibna left right baan ka dhiganay. inta markaan sameynay aan ogaana marka aan niri noo bilow marka waxa ujeedaa walaalkii inuu soo kackacayo oo angle sa ugu jeedaa ka dhamaanayo wuxuu noqonayaa sida abeesa boodisa camal. waxaan ku raahdaa waxa la boofeynayo ayuu soconayaa computerka ayaa ku dhagdhagaya. marka qoraalka doonaysa in saa u sameeyay sidaas ka dhigaysaa si kasta oo iyo u qurxin ka dhaa. haddii rabtid qofkan oo ordaya ee wax kale ku sameyn karaa dad baabuur socdaan ka hor keeni karaa oo shayga doonta sameyn karaa. waxa weeye marka qoraalka qaabka aad u qurxisid ayuu qoraalku noqonayaa ma garanaysaa. marka project-ga sidaas loo diyaashaa inta marka joogtid waxa doonta ku qurxin karaa ayaa waxa sameynayaa inta markaan joogo ayaa waxa sameynayaa inaan save gareeyaan doonayaa. marka koowaad korta computerkayga control-kiisa iyo assistance la qabanaya oo waxaan leeyahay save waxaan leeyahay geek ku dhigaa uu ku leeyahay desktop-ka iyo dhig baan leeyahay. okay magac hore jira uu ku leeyahay ma ka dhigaa. marka waxaan leeyahay project 3 oo kale taan leeyahay kadibna save baan iri wuu qaata save kan ma ahan save adiga video waxaan ku anfacayo maaha laakiin waa kayd xogaa uu ku kaydsanaa computerka si dhaqso leh kaaga damo hadhow waad la soo kici karaa oo markale waa soo cusboonaysan karaa oo meesha uu yaala ayaad ka raadsan karaa. marka save gareynta caadiga aan ku tusayaa waxaan ku dhufanayaa share
share markaan iri waxaan kasi dooranayaa file select file baan iri wuxuu ku leeyahay bookskaana ku siinahay oo diidmada amoodaysid kadibna waxa leedahay okay sida waa loo baahan yahay kadibna bookiskan kale uu soo dhigay ficta yar ayaan furay kadibna waxaan ka sii dooranayaa high definition 720 iyo high definition 1080 ka dooranaya waa ka sareeyaa oo ka muuqaal qurux badan yahay kadibna waxa leeyahay next kadibna wuxuu leeyahay geed dhiganaysa projectigan magaciisa hal project 3 meel yiraahdo videogan marka waxa leeyahay waxa la yiraahdaa 10 project magaciisa iyo kan kala duwan yahay 10 ka tobnaad baan leeyahay 10 ka tobnaad 10 hagee dhigaysaa lessons ma dhigaysaa video meesha doonaysid kadibna waxa leeyahay finish sidaas ugu save gareysmay finish marka araahdo toos buu ugu save gareysmay somaad garan marka finish tiray toos buu ugu save gareysmay meesha aad dhigto kugu save gareysmay laakiin saasa u save gareyn kada magacada ku qoratay finish tiray ilaa intuu daqiiqo soconayo kaliya sugaysa okay intaas ayaa barashadiisana maanta ku egyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad la socon doontaan haddii Allah awood u ogolaado muuqaalo kale oo xiiso badan oo qayb ka ah film editor kana duwan daatada maanta isticmaalan oo Camtasia Studio ah daatooyin kale oo isticmaalan wax kamid ah Sonafigures iyo Adobe Premiere Pro Adobe After Effects iyo waliba noocyada kale markaas soo aragnayna muhiimad yihiin iyo sidoo kale casharada design-ka ah oo doonayno inaan kusoo kordhino halkan oo qaarkoodna ayoo duuban ay xilligan diyaarsan yihiin qaar kalena doonayno kusoo kordhino oo YouTube ka soo galino aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta projectigeena 10 tobnaad intaas ayuu ku eg yahay waa injineer Naasir Axmed Jaamac kaga tagay kulan damo xiiso leh iyo waliba casharada Class Academic and Technology haddii muuqaalkan ku xiiso gashay ama aad doonaysid in aad video editor ka baratid fadlan subscribe ha ilmaamin iyo waliba inaad comment noo reebtid